fixed mindset-ka ma wax lagu dhashaa oo is it naturally born trait miya mise waa wax la barto aniga waxaan ku leeyahay fixed mindset-ka ma ahan wax lagu dhasho oo ilaahay kugu dhaliyo ma ahan laakiin wax la barto maskaxdaada aad bartid waa haddaba hadday tahay wax maskaxiyan la barto ama maskaxdaada aad ku programmisid ama u sheegtid oo baratid maxaa sababi karo oo koos garayn karo in aad baratid ama maskaxdaada aad ka dhigtid ama hab fikirkaada uu noqdo fix maxaa sababi kara number 1 waxaa sababi kara upbringingka habka lagu soo koriyay ama koriimadaada ayaa saameyn ku noqon karta ama saameyn ku yeelata in aad develop garaysid fixed mindset-ka haddaba sidee koriimadaada ugu saameyn kartaa in aad yeelato fixed mindset-ka number 1 tusaalahaan oo kale qofka ama ilmaha markay leeyihiin xaafadda ama guriga joogaan haddii zaid loo ammaano oo la yiraahdo adiga waa caqli badan tahay hiba ilaahay ku siiyey wax walba si fiican ba u samaysaa waxba khalad ma samaysid waad wanaagsan tahay ammaanta laga badbadiyo qofkii wuxuu xiranayaa difaac oo ah mar walba caqligiisa iyo ammaantaas la ammaanay in wax walba u suuragelinayso oo wax walbana bilaa dadaal uu u qabsoomi karaan buu aaminayaa uu rumaysnaanaya ha fikirkaas halkaasuu kasoo bilaabaya oo fixed mindset-ka ah sidoo kale qofka ilmaha markay reeri haddii mar walba lagu yiraahdo markay qalad sameeyaan la ciqaabo mar walba lagu qaaliyo mar walba yiraahdo waa khaldantaa mar walba waa khaldantaa kan waa la ciqaabo oo lagu cambaareeyo lagu caabeeyo qaladkiisa iyadana waxay saameyn yeeshaa inuu isxiro difaac xirto uu ka fogaado wax walba qaladka uu ku sameyn karo ama qaladkii u keeni karto bilaa dadaal iyadoona loo sheegaynin qaladaadka in wax laga barto oo mistakeskan ay ka caawinayaan noloshaada inaad ku hormariso saameyntaas ayaa waxay sababtaa inuu qofka fixed mindset-kaas uu ku koro haddaba midda kale waxaa weeye schooling systemka waxbarashada nidaamka loo sameeyey of course waddan kasta wuxuu leeyahay waxbarasho system waxbarasho ayuu leeyahay nidaam waxbarasho nidaamkaas waxbarasho ayaa waxay sababtaa in ardayda iskuulaadka kasoo aflaxa fixed mindset-kaas iyana samaystaan sidee ku samaysan karaan ama sidee ku saameyn kartaa waxaa weeye iskuulka marka systemkiisa waxaa u degsan performance waxa la yiraahdo habkii uu qofka ardayga uu ku guuleysan lahaa ayay samaystaan su-aalooyin oo waxbarashada casharka la baray ayaa la diyaariya imtixaanaadka markii la sameynayo su-aalahaas jawaabta marka ayaga ugu